waxaanu kaga jawaabaynaa indhihii caafimaad qaba iyo caqligii saliimga uu garan karaa Somaliland hubkan iyadaa qabatay iyadaana haddii bada sheegtay marka caqliga wanaagsan uu garanayaa qofku hubka uu sheego ama waxa uu sheega hadduu isagu qarsanayo dee maanaan sheegneen sidaa darteed hubkaas waxa weeye waa hub si sharci darraa ku yimi oo markab soo galay haabada berbera ku yimi gacantaanaan ku haynaa waana sidaan u sheegnay wax shabaab la yidhaahdo Somaliland ay shaqo ku leedahay ma jirto sababta waxa weeye Somaliland waxay tahay cidda ugu badan ee al-shabaab kala dagaalanta dalkeeda inaanay wax dhibaato aan ka samayn waana dhacdooyin cadow loo yahay meesha ay ku milan yihiin hawsha ka wadana waxa weeye Puntland marka waxa weeye aan qurinka dhexdiisa yaalay in Somaliland kula soo galgasho waa mid aad looga yaqasado af mas'uul ku hadlana afku ku hadlay maaha waxaan leenahay afkii mas'uul maaha hadduu af mas'uul yahay waxa weeyaan waxa ay wax ka wanaagsan u sheegi lahaa wax la rabo eedeeyana maaha ta kale waxa weeyaan anagu beelaha dariska aan nahay waxaan kula noolay nabad iyo jaar wanaag wali nooma iman hay'adahaas laakiin waa hay'adaha aan sugayno inay noo yimaadaan oo xaqaa'iq ay gudbiyaan oo ay arkaan waana kuwa la sugayno iyo cidii la mid ee la dagaalanka hubka ku shaqale marka wad casuuntiin kolay in baaq waanu gaarsinay hay'adaha caalamka iyo iyagaba waxaan ku rajaynaynaa isagu dhaqsaha badan iyo Somaliland yimaadaan markabkaas waxa weeyaan dekada Suudaan la yiraahdo ka soo baxay boor Suudaan ka soo baxay waxaanu sida aan ku aragnay waraaqihiisa uu ku waday carwo uu sheegay in Abu Dhabi ku taalo oo 22 bisha February ilaa 26 February ka furmaysa anagu se maanaan aaminin waraaqaha iyo waxa laakiin waanu baaraynaa baaritaanka uu noo socdaa hubkaana hubaanu si fudud si deynayna maaha hay'adaha caalamka hubka ku shaqaale iyo cidii sheegata markay noo cadaato ayuun baanu sii deynaynaa haddii kale Somaliland ayaa gacanta ku haynaysa